Waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa cashiro ku saabsan xeerka af-Iswiidhishka ama Svenska grammatik. Cashiradan waxa aan ku bilaabi doonaa ordklasser ama eray kooxeed waxa loo yaqaano. Muuqaalkan waa kii koowaad oo aan si hordhac ah ugu soo gudbin doono noocyada kala duwan ee eray kooxeedyada oo af-Iswiidhishka lagu yiraahdo ordklasser. Vad är ordklasser? Waa maxay eray kooxeed ama ordklasser maxay yihiin? Ordklasser waa magac loo yaqaano erayo isleh ama isku nooc ah. Af Soomaali ahaan waa eray kooxeed oo ka dhigan koox erayo ah ama tiro erayo ah. Eray kooxeed ama ordklasser sida Swedishka lagu dhaho waxaa la adeegsadaa marka la kala saarayo erayo iyada oo la israacinayo hadba inta isku si loo adeegsado ama loo isticmaalo. Ordklasser waa magac loo yaqaano erayo isleh ama isku nooc ah. Af Soomaali ahaan waa eray kooxeed oo ka dhigan koox erayo ah. Eray kooxeed ama ordklasser waxaa la adeegsadaa marka la kala saarayo erayo iyada oo la israacinayo hadba inta isku si loo adeegsado ama loo isticmaalo. Af-Iswiidhishku waxa uu leeyahay tiro ordklasser ah ama eray kooxeedyo ah. Su'aashu marka waxay tahay hur många ordklasser finns det i svenska språket? Luqadda Swedishka ilaa iyo intee erayo ah oo ordklasser ayaa ku jiro? Waxaa ku jiro ordklassyada ka mid ah substantive oo inta badan magacyo ah sida magaalooyinka iyo dadka oo kale. Af Soomaaligu marka waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay magac. Verb oo isaguna ah waxqabad ama ficil ama fal uu qofka sameeyo. Adjective oo isaguna ah qeexe af Soomaaliga lagu dhihi karo oo qeexo waxa sida u egyahay. Tusaale haddii aan ku iraahdo 5 shaati oo meel taalla shaati iga soo saar markaad tagto waad ku wareeraysaa shaatiga aan rabo inaad ogaato way kugu adkaanaysaa. Haddaan ku dhaho shaatiga guduudan marka waad ka soo dhex saari kartaa hadday shaatiyada kala guduudneen kan guduudan baa ka soo dhex saaran kartaa. Markaas oo kaleeto waxaad isticmaalay oo kugu qeexay wixii aan rabay adjective ereyada la yiraahdo sida midabada ka mid ah. Pronomen isagana waa magacuyaal. Meeshii aad dhihi lahayd cabdi ayaad waxaad leedahay isaga. Marka booskii cabdi waxaa gelaya kelmadda isaga. Waa isaguna magacuyaal. Waxaa ku sii xigo prepositioner oo meelayaal ah. Inta badan Swedishka på, i ayay noqdaan. Marka tusaale ahaan sariirta dusheeda på sängen, sariirta gudaheeda marka qofka bustaha uu ku jiro oo kaleeto i sängen. Marka saasaa loo isticmaalaa. Af Soomaaliga meelayaal la dhahaa. Räkneord waa af Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa eray tiro. Erayada tirada loo isticmaalo sida koowaad, labaad, saddexaad ama 1, 2, 3. Adverb inta marmarka qaar waxaa lagu yara qaldaa adjectiveka lagu qaldaa, qeexaha lagu qaldaa laakiin waa qeexa naftigiisa laakiin wuxuu qeexaa ficilka ayuu qeexaa. Ficilka ayuu qeexaa. Marka waxaa la oran karaa fal qeexe maadaama waxqabadka uu qeexo. Tusaale ahaan waxaa la oran karaa Axmed xoog ayuu u ordayaa. Kelmadda xoog waxay qeexaysaa sida uu Axmed u ordayo ama xawliga orodkiisa uu yahay. Orodkuna waa ficilkii uu qabtay markaa Axmed ayuu noqonayaa. Saas oo kale loo adeegsan karaa. Konjunktioner. Konjunktioner waa xiriiriyeyaal. Waxay xiriirin karaan laba jimlad ama laba weer sida af Soomaaliga lagu dhaho oo labaduba siman awood ahaan siman. Ama waxay xiriirin karaan laba saas oo kaleeto weer oo aan ayagu sinayn. Tusaale ahaan Axmed Aamina way baxday haddaan dhaho. Mar Aamina way baxday Axmedna wuu yimid.
na'daas waxay la mid tahay ok ayaa Swedish ku bedelantaa af Soomaaligana caadiyan iyo ayay booskiisa gashaa saas oo kaleeto marka ayaa loo isticmaali karaa marka labadan ah Axmed Aamina way baxday axmedna wuu yimid waa la dhihi karaa axmed wuu yimid aamina way baxday labadaba gooni bay u istaagi karaan isuma baahna in la isku xiriiriyo laakiin na'daas haddii la raaciyo waa la isku xiriirin karaa oo waxaa laga dhigi karaa hal weer ama hal jimlad sidaa darteed waa xiriiriye ayay noqonaysaa kelmadda na oo caadiyan booska ku jirto iyo booskiisi gelayso swedishku ok ayay iyo na'daba u isticmaalaan dhinaca kale marka laga fiiriyo waxay noqonaysaa laba jimladood ama laba weer oo midigaasiran tahay wax dhiman tahay oo aan keligeed istaagi karin iyo mid keligeed istaagi karto tan keligeed istaagi karto oo kale waxay noqon kartaa axmed wuu baxay markii ay aamino timid haddii markii la geliyo marka markii ayaguna xiriiriyo waay sidii nacdoo kale xiriiriyo yahay laakiin markii ay aamino timid keliya inta la dhaho layskama istaagi karo waa inaan kuu sheegaa wixii dhacay markii ay aamino timid iyo wixii ka dambeeyay tusaalooyin kale hadhowan keeni doonaa markaan mid kasta gooni u sharaxayo marka sidaas oo kaleeto jumladan gaasiran iyo tii hore labadaba kala istaagi kara midba goonigeed u istaagi kartay oo kale ayuu xiriiriyaan kelmadahan oo kaleeto waxaa ku xig waxa la yidhahdaa interjektioner swedishka ay dhahaan interjektionen korka waa erayo yaryar waaye sida ay markii qofka wax ku dhacan yaa bal oo kaleeto iyo waxyaaba aan macna ku fadhinin oo dhawaaqa oo dadku ay tiraahdo ay dadku inta badan afka u bartay oo ay dadku iska yiraahdaan oo kaleeto allah oo kaleeto noqonaysaa inkastoo allah ee allah ka timid oo dadku ilaahay mataqaana ay u noqonayaan marka wax ku yimaadaan laakiin kelmadda allah marka la haddii aan saa loo fasirin oo dhinaca diinta aan laga eegin waxay noqonaysaa kelmad aan macno kale samaynaynin oo aan ka ahayn oo kaleeto iyo haddaan dhaho kale marka meel ay xanuunto oo kaleeto waa dhawaaq aan samaynayo oo kaleeto laakiin dee waa kelmadahaas yaryar ayay ka mid tahay marka haddii aa u baahataan inaad daawataan boggan waxaad akhrisan kartaan QR code waxa la yidhaahdo ayaad QR code oo reader waxa la yidhahdaa jiro ayaad saaran kartaan mobiilnida kusoo dejisataan ayaad halkan ka akhrisan kartaan haddii kaleeto waxaad youtube-ka ku qori kartaan waxbarasho waxyar ka durqa org ku qora oo idiin soo baxaya bogga youtube-ka haddii kaleeto waxaad dad warbixin iyo wax rabtaan inaad iisoo dirtaan tala igu dirsataan wax qaldamood isleedihiin waxaan saas inuu dhahma ahayn saas inuu si kale inuu u sharaxay ahayd ayadoona talooyinka noocaas waan soo dhaweynayaa oo aad iyo aad waayo waxyaabo badan oo aan sharaxayo waxaa dhici karto marmarka qaar inaan qalad galo in la isixana way wanaagsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hana moogaanina fiidiyoyada soo socda ilaa 10 video oo isku xigo oo ud classrka ka hadlayo ayay noqon doonaan